ku soo bir kanaalka Sahanka Dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum dhammaan akhyaarta sharafta leh ku soo dhawaada kanaalka Sahanka Dunida. Jokerku hadduu isdilay maxay tahay sababta ka dambeysa ilaan magac iyo maal buu lahaa hadduusan isdilinna maxay tahay sababta kale ee ka dambeysa dhimashadiisa. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa mid ka mid ah waxyaabihii jawaabaha loo waayay. Dabeecadaha Jokerka waxaa loo tixgeliyaa inay ka mid tahay waxyaabaha ugu adag ee wakiilka ka ah ka hadalka sharka ku duugan adduunka. Haddaba intaana gudagalin barnaamijkeena fadlan subscribe saar kanaalka gambaleelkana taabo si ay muuqaaladeena kuu soo gaaraan. haddii uu ku anfacana muuqaalkani fadlan like garee. Subax kasta Teresa Solomon waxay imaan jirtay guriga jilaaga reer Asturia ee Heath Ledger oo ku yaalay Brom Street ee magaalada New York si ay u qabato shaqadeeda maalinlaha ah ee nadiifinta qolalka. Julaayo 22, 2008 iyadoo shaqaysanayso Teresa waxa ay ku fikirtay ugu horeyntii inaysanba wax shaqo ah qabanin ilaa ay ka tagto qolka jilaaga. Heath waxay ogaatay inuu jiifo waxa ay sii wadatayba shaqadeedii iyadoo aanan ka kicin hurdada. Maalintaas Heath waxa uu balan la lahaa Diana qiyaastii 3 saac. Diana ayaa timid waqtigii loogu talagalay waxayna fariisatay guriga iyadoo sugaysa. Kadib markuu uu ku soo daahay waxay go'aansatay inay taleefanka ka wacdo laakiin kama aysan helin jawaab, taasi oo ku kaliftay in ay aado qolkiisa jiifka. Diana waxay ogaatay in Heath sariirtiisa uu iska jiifo waxayna isku dayday inay hurdada ka toosiso laakiin kama uusan jawaabin qeelideeda. sidaas daraaddeed waa ay argagaxday. Cabsi iyo qeelo ayaa ku soo korortay laakiin waxay go'aansatay inay wacdo Heath saaxiibadiisa atriishadii Mary Kate oo talo ku siisay inay u yeerto booliska. Diana waxay ku soo laabatay qolka Heath si ay u kiciso mar kale waa ayna ka quusatay. waxay go'aansatay inay wacdo lambarka degdega ah. daqiiqado yar kadib oo aan sidaa u badnayn ambalaas baa timid waxayna isku dayeen inay badbaadiyaan. waxaa la ogaaday inuu wiilka aktarka ah geeriyooday, da'diisuna maysan gaarin 29 sano. meydka Heath ayaa loo qaaday isbitaal waana la baaray waxaana warbixinta lagu soo daabacay in dhimashadiisu sababtu u tahay daawooyinka hurdada uu isticmaali jiray. dad badan kuma qancin warbixintaas walow ay soo baxeen warbixino sheegaya in uu isaga isdilay. dad baa isku raacay in loo dilay xaalado dahsoon iyo qaab casri ah si uusan cidina u ogaanin. waxayna dadkaas sheegeen Freemasonry in ay dileen maadaama loolan ka dhaxeeyay. inkastoo guul ballaaran gaaray dhimashada kadib iyo ka horba filmadiisa taxanahan ah ay noqdeen kuwo aad caan u noqday, dad badanna ay isticmaaleen wejiyadiisa. waxaan rajaynayaa in uu muuqaalkani ku caawiyay. haddii uu ku anfacay la wadaag oo sii gaarsii asxaabtaada kale. haddii aadan horay subscribe u saarinna kanaalka hadda subscribe saar si aad muuqaaladeena dambe ula socoto.